Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wiil dhallinyaro ah ayaa dhaqan ka dhigtay deeqsinimada iyo u samaynta khayrka qofka uu garanayo iyo qofka uusan garanaynin. Wuxuuna ahaa mid ay jecel yihiin ehelkiisa iyo jiiraankiisa, waxayna ku jeclaayeen laasimidda cibaadada iyo ilaalinta xuduudda Alle. Wuxuu guursaday wiilkan gabar qurux badan, kana soo jeeda qoys weyn. Hal bil kadib guurkooda wuxuu ogaaday in xaaskiisa aysan jeclayn ehelkiisa, ayna soo dhowaynin marka ay soo booqdaan. cagsigeedana ay ku qaabilayso ehelkeeda farxad weyn una keenayso shay kasta oo macaan oo wanaagsan. Arrinta ayuu ku baraarujiyey xaaskiisa, laakiin waxay ku tiri, sida aan ehelkayga u soo dhoweeyo ayaan u soo dhoweeyaa ehelkaaga, si uusan u xumaanin xiriirkooda una gaarin kala tag. Ninka wuu iska aamusin qalbiga ayuuna uga duceeyey in Alle uu hanuuniyo. Salaad kasta kadib wuu u ducayn jiray. 6 bilood ka bacdi guurkooda, ninka wuxuu ku dhahay xaaskiisa, waxaan u hiloobay waalidkayga iyo walaalahay. Waxaan kaa rabaa barri inaad u samayso qado wanaagsan. Hadda ayaan waacayaa waana u sheegayaa, waxay ku tiri iyadoo ka santaagayso hadalkiisa. U yeer sidaad doonayso. Subaxdii xigtay wuxuu aaday shaqada, wuxuuna ka imaaday duhurka ka hor. Wuxuuna ku yidhi, ma diyaarisan qadadii? Waalidkayga waxay imaanayaan saacad kadib. Waxay si dhib la'aan ah u dhahday, maya, waxba ma aanan karinin, ehelkaagana ma ahan qurabo, waxayna cunayaan cuntada aan karsannay annaga. Wuxuu ku yidhi, maxaa shalay iigu sheegi weysay inaadan waxba karinaynin? Hadda way imaan rabaan, maxaan sameeyaa? Waxay ku dhahday, la hadal, u cudur daara, una sheeg inaysan imaanin, waa ehelkaaga, wayna kaa aqbalayaan. Ninka guriga ayuu ka baxay isagoo murugaysan. Daqiiqada ka bacdi guriga ayaa la soo gargaraacay. Way istaagtay wayna ka furtay. Waxaa u soo galay waalidkeeda iyo walaalaheed. Waxay ku noqotay fajac iyo amakaag. Aabbaheed ayaa ku yidhi, aaway ninkaaga? Waxay ku tiri, wuu baxay daqiiqada ka hor. Wuxuu yidhi aabbaheed asagoo caraysan, siduu u baxaya? Asagaa shalay nugu yidhi berri imaada, aniga ayaad ii casuuman tihiin. Khabarka ayay ka naxday, waxayna isku dhufatay gacmaheeda. Waxay si hoose isku dhahday, cuntada taallo uma qalmaan ehelkayga in lagu casuumo, waxayna u qalantaa ehelkiisa. Waxay wacday ninkeeda, waxayna ku dhahday, maxaa iigu sheegi weysay inaa aniga ehelkayga marti qaaday? Wuu dhoola caddeeyey, wuxuuna ku dhahay, wax farqi ah uma dhexeeyo ehelkayga iyo ehelkaaga. Waxay ku tiri, codsi, guriga cunto ma taallo, ee cunto fiican noo soo gad. Wuxuu ku yidhi, waa ehelkaaga, qurabana ma ahan, ee sii cuntada taallo guriga. Sidii aad u siin rabtay awal ehelkayga, u sii ehelkaaga. Intaa kadib way iska aamustay. 5 daqiiqo kadib ayuu guriga imaaday isaga oo wada cunto aad u wanaagsan. Inta aanan la gurin ayuu waalidkeeda u sheegay wax walba oo dhacay. Dhammaantoodna way ka caroodeen. Aabbaheed ayaa ku yidhi gabadhiisa, soo ma aadan maqlin in Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu yidhi, qofkii rumaysan Allah iyo maalinka aakhiro ha karaameeyo martigiisa. Kadib ayuu ka idin qaatay ninka gabadha qabay, kuna yidhi, aniga ayaa wadaayo oo soo idbinayo. Ninka ayaa yidhi, waan awooday inaan ku ciqaabo ciqaab daran, laakiin waxaan jeclaa inay iyada isbeddesho nafsad ahaanteeda. Waxay taraysaa salaadeeda haddaysan si wanaagsan ula dhaqmaynin dadka. Wallaahi adeer, waxaan uga baqayaa munaafaqnimo. Mar walba waxay ii ammaanaysaa ehelkayga, laakiin ammaanteeda waxba kama arko marka ay nala joogaan. Gabadha way u cudur daaratay ninkeeda, waxayna ugu dhaaratay inay isbeddelayso. Wayna fahamtay cashirkii, waxayna ogaatay khaladkii ay ku jirtay. Ninkeedana wuu cafiyey marka uu gartay runta sheekadeeda iyo niyaddeeda. Fadlan haddaad dhammaysatay qisada aan like saar, nagu soo biir oo subscribe leh. Dunida maanta aad ayaad u mahadsan tahay.